Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xamza Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu hortagay baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si ay u siiyaan codka kalsoonida. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa soo xaadiray xarunta Golaha Shacabka waxaana dhammaan ku sugnaa guddoonka Golaha Shacabka. Kulanka waxaa soo xaadiray 220 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanadii soo xaadiray kulanka ay codka kalsoonida siiyeen Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre. Ma jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay. Quorumka xildhibaanada noo fadhiya waa 220 xildhibaan. Dhammaan waxay u codeeyeen ogol. Waxa ka aamusay waxa diiday ma jiraan. Sidaa daraaddeed Ra'iisul Wasaaraha magacaabistiisa waa ansax Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo qadar silaadan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo ay codka kalsoonida siiyeen xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa markii la magacaabay waxa uu ballan qaaday in uu soo dhisi doono golo wasiiro kuwaas oo samata bixiya xaaladda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro. Cabdinaasir Socdaal, Dallis News.